aqoonta islaamka iyo psychologigu qaabka ay isugu geli karayaan oo religious psychology la yidhaahdo. marka laba qodob oo waaweyn baan doonaya inaan kasoo qaato. waxa weeyaan hadalka iyo qaabka laysku dhegeysto. qaybna waxa weeyaan dhaqanka biniaadanku kala leeyahay. dabcan qof waliba meel ayuu degan yahay, meeshaasina dhaqaniya waxay leedahay iyo caadaad. markaa qofku inuu garanayo ayaa tarbiyadu ay ku jirtaa. akhlaaqduna waxay ku jirtaa inaad garanaysid dhaqanka la samaynayo, kiisa xun iyo kiisa wanaagsan, iyo ra'yiga dadku ay kaa qabi karaan. adaabtuna waxay ku jirtaa in aanad la iman dhaqanka aan lagu aqoon dhigaaga. dhaqanka lagu yaqaano caqli badnaanta dhinaca dhaqanku waxa weeyaan inaad garato sax iyo khalad wixii loo yaqaano dhaqanka oo aad fahanto. kalsooniduna waa inaad taageertid habdhaqanka qofkaaga. sax iyo qaladbaa waxa weeye kalsoonida hadalkuna waxa weeyaan inaad ixtiraamto ra'yiga ama aragtida qofkaagu uu leeyahay. waa inay ku cadahay ujeedada aad ka leedahay waxaad ka hadlaysid. adaabtu waxa weeyaan inaad hadalka lagu sheega aad dhegaysatid, qofkana kuu sheegayana aanad hadalka ku jarin. caqli badnaantu waa inaanad qaadan wax wal oo laguu sheego. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.